Roy iyo Joyce wax ka ogow nolosha lamaane 81 sano wada joogay. Lamaane u dabaaldegay sanad guuradii 81aad ee arooskooda ayaa markii ay isguursadeen loo sheegay inaysan isku waari doonin sida ay ku warantay gabadhooda. Roy oo da'diisu tahay 102 sano iyo xaaskiisa Joyce oo 100 jir ah waxay ku nool yihiin xaafadda Shenley ee magaalada Milton oo ka tirsan dalka England. Waxaa la aaminsan yahay inay yihiin lamaanaha guurkooda ugu waqtiga dheer yahay ee ku sugan UK. Lamaanahan ayaa 4 bishii Janaayo sanadii 1941 isku guursaday deegaanka Newport oo ka mid ah magaalada Buckingham. Gabadhooda Aileen ayaa tiri waxaa jiray dad ku hadaaqayay markii hooyaday iyo aabahay isguursanayeen in aanay muddo dheer sii wada joogi doonin siday dadkaasi wax u odorseen, soo lama dhihi karo wax sax ma ahayn. Sanadkii la soo dhaafay, lamaanahan ayaa hambalyo qoraal ah ka guddoomay boqoradda markii uu gaaray akhbaarkooda la xiriira dabaaldegga sanad guuradooda. Ron oo ka yimid Plania oo ka tirsan deegaanka Wenty iyo Joyce oo ku dhalatay Bow oo ka tirsan deegaanka Milton ayaa ku kulmay Bletchley iyagoo isku guursaday xafiiska diiwaangelinta guurka ee Newport, markaasoo barafka dhulka ku da'ay uu gaari jiray 3 inchis oo dhulka ka kacsan. Xilli ay isguursadeen waxaa jiray in lamaanayaasha safaf dhaadheer la gelin jiray, dhammaantoodna si loogu diro dibadda oo ay gacan uga geystaan dagaalka markaasi jiray, ayay tiri Mrs. Bond. Lamaanuhu waxay isku raaceen inay jacayl isku qaadeen is-araggii koowaadba. Waxay rumaysan yihiin inay yihiin dad isku qalma oo weli isu hamuun qaba. Marka la eego xiriirka naga dhexeeya, ma jirto qof madax ah iyo qof majo ah. Dareenka iyo kalgacalka naga dhexeeya waa mid ka weyn kala socod iyo kala sarreyn, ayay tiri Mrs. Bond. Waligeen ma filayn in wada joogisteenu gaarto 81 sano. Waxaan ognahay inaan aad u nasiib badan nahay maadaama aan gaarnay yoolkan cajiibka ah. Waana dareen aad u wanaagsan, ayay sii raacisay hadalkeedii. Dhanka kale, Mrs. Bond ayaa tiri mararka qaar noloshu way adag tahay balse si wada jir ah ayaan xal u raadinaa waana iska warqabnaa. Sidoo kale, lamaanahan ayaa isu dhalay 2 carruur ah oo lagu kala magacaabo Aileen iyo Bill. Carruurtaasi ayaa dhalay iyana 3 carruur ah iyadoo 3dii carruur ay sii dhaleen 6 kale oo carruur ah. Haatan reer Bond waxay marayaan faracii 4aad. Mr. Bond waxa uu ka soo shaqeeyay garaash ay leedahay shirkadda Shell oo ku yaala Bletchley ka hor inta aanu howlgab noqonin, halka Mrs. Bond ay ka soo shaqeysay shirkadda Woolworths oo ku taala Queensway. Lamaanahan ayaa u wareegay tuulada howlgabka sanadii 2013. Gabadhooda waxay sheegtay in waalidkeeda ay ahaayeen lamaane runtii is dhiirigeliya, mar waliba waxay isku muujin jireen soo dhaweyn iyo jacayl diiran oo isku qabaan labadoodu. Aabahay aad buu ugu dadaali jiray in reerka uu masruufo, halka hooyadana ay aad uga shaqayn jirtay ilaalinta nadaafadda guriga. Waxa kaliya oo aad ogaan karto jacaylka ka dhexeeya iyo sida ay isu daryeelaan waa inaad waqti la qaadataa iyaga xitaa iyagoo is qabay 81 sano kadib, ayay tiri gabadha lamaanahaasi. Waxaad u baahan tahay inaad page-keena like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jawhar TV. Daawade